madaxweynaha dowladda Jubbaland madaxweyne ku-xigeenada golaha wasiirada salaamullaahi calaykum maanta kalfadhigan aan caadiga ahayn ee golaha wasiirada waxaan madaxweyne ka codsanaynaa in ay noo ansixiyaan qondada miisaaniyadda 2022 sida ku cad miisaaniyadda 2022 miisaaniyadda Jubbaland waxaad ka dareemaysaan oo ka arkaysaan in uu jiro sare u kac ku yimid dakhliga Jubbaland miisaaniyadda 2022 waxay ka turjumaanaysaa ahmiyadda ay dawladdu u leedahay horumarinta bulshada waxayna ku tiirsan tahay tiirarka ay ku dhisan tahay kuna tiigsanayso horumarinta ay dawladda Jubbaland u qoondeysay kuna cad strategic planka 2021-2024 mudane madaxweyne sida aad ka arkaysid halku dhaga sanadkan ee miisaaniyadda 2022 waa dhisid adeegsi maxalli ah iyo abuuridda dhaqan adeeg bixin mudane madaxweyne qoondada miisaaniyadda 2022 waxay diiradda saaraysaa in aan horumar ka sameeyno dhaqaalaha gudaha ah oo sare kac aan ku sameeyno ururinta revenue gudaheena ah oo isku tashi ah mudane madaxweyne sanadkani 2022 wuxuu cadeyn u noqon doonaa in dawladda Jubbaland ay ku guuleysato inay horumar aad u baaxad weyn ay ka sameyso ururinta dakhliga maxalliga ama gudaha mudane madaxweyne miisaaniyadda 2022 waxaa hormuud u ah in aan la imaano hufnaan iyo daahfurnaan ku dheehan dakhliga ama maareynta miisaaniyadda Jubbaland waxaan horumar ka sameyn doonaa oo aan diiradda ku saaraynaa inaan horumar wanaagsan ka sameyno ururinta dakhliga kaasoo ku salaysnaan doono automation systemka ama systemka dakhli aruurin oo electronica ku salaysan ama qaababka horumarka teknolojiyada la jaanqaadayo mudane madaxweyne waxaan hufnaan ka sameyn doonaa qarash bixinta oona ku cad qaabka istiraatiijiga aan oga diyaarsanay sanada 2022 mudane madaxweyne sare u kaca ku yimid ama aan saadaalinayno sanadka 2022 wuxuu ku dhisan yahay adkaysiga aan ka sameynayno qaabkii aan horumar oga sameyn lahayn hufnaanta iyo dardargelinta aruurinta canshuuraha iyo horumarinta aan ka sameynayno dakhli abuurka gudaha ah waxaan doonaynaa sanadka 2022 inaan horumar ka sameyno dhanka shaqo abuurka kobaca dhaqaalaha iyo bixinta adeegyada bulshada oo si hufan ay ku dheehan tahay mudane madaxweyne golaha waxaan ka codsanaynaa iyaga oo qadarinaya xaaladda aan ku jirno muhiimaddu ay u leedahay in dawladda Jubbaland ay yeelato qoonda sanada 2022 in golahu si sharaf leh uu noogu ansixiyo miisaaniyadda sanadkan waxaan rajaynaynaa inay ka turjumaanayso kor u kaca ku yimid dhaqaalaha iyo saadaalka hufnaanta shaqo wanaagga shaqaalaha wasaaradda ay soo bandhigeen taas oo cadeynayso in sare u kac uu ku imaan doono dakhliga aan rajaynayno 2022 golaha wasiirada sharafta leh waxaan mudane madaxweyne ka codsanaynaa in ay noo ansixinayaan miisaaniyadda wasalaamati maaliyaddu wuu idin soo gudbiyey arrintu ka hadlayay wasiirka arrimaha gudaha idinku da'weyn uu qaaday wuxuu dhi waan qaadnay ilaa ansixiya markaa waxaan rabaa in wasiiradu ay gacanta u taagaan barnaamijka ansixintiisa intii dejiya gacanta